musharaxa madaxweynaha xisbi xakanka talada dalka haya kulmiye ahna gudoomiyaha xisbigaasi ayaa saaka taageerayaasha ku dhaqan magaalada Xabeed Berbera kala qayb galay isu soo bax ballaaran ay ku muujinayeen xuduudda iyo awoodda uu ku leeyahay xisbiga kulmiye deegaanada gobolka Saaxil iyo degmada Berbera fakaaraha 26 Juun ay soo yimaadeen kumanaan taageerayaal ku labisan calanka labada midab ee astaanta oo ah xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxa halkaasi kala hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye waxaan jecelahay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Berbera iyo gobolka Saaxilba inaan dhammaantiin idin mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa horta waxa la yaab leh oo cajaayiba Soomaaliya hore uga maamaahdo waxay taadaan ratiga lala carab leh raggu lala carab ma laha halkan station waxa yimaada kuwii qaranka u soo shaqeeyay ee ku fail garoobay oo iskuulkii u dhisay dafiraya oo maxaan ku yiraahdaa caafimaadkii uu ka shaqeeyay dafiraya saaka 6dii ilaa 11kii duhurnimo joogay milicda si ay codkooga iyo cudubooda u muujiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aniga iyo Muuse Biixi oo ah wasiirka dakhliga anigu markaan waxana wasaaradda maaliyadda 93kii ayaa madaxweyne cigaal wuxuu noo Allah yarxamay wuxuu soo diray wafdi ballaaran wuxuu yiri meeshii Berbera taga cashuurtii hal la bilaabo si aynu qaranka iyo ciidamadii u dhisno dahabku marka uu dhulka ku dhaco ee ciid saawiyo dul fuusho hadduu 10 sano ma hay hadduu 5 sano intuu dowladdu ku jiro waa dahabkiisii uu dahabka waddankan soo halkabay u soo shaqeeyay waa jooga magaaladii xundurta u ahayd dhaqaalaha soo socda ee Soomaaliland magaaladii xundurta u ahayd marka halkan mustaqbal weyn baa yaala mustaqbal weyn oo aad ku farxi doontaan baa yaala waa codan Soomaaliya ku badbaadinayno waxaynoo ballana maalinta codaynta inaanad wada joogtaan oo codka Muuse Biixi ugu ridaan oo noqdo madaxweynaha mustaqbalka biidhnillaahi alkariim maanta bishu waa 12 casho ka bacdi waxaynu dareeraynaa doorashadii madaxweynaha ayaynu dareeraynaa doorashadaas aad iyo aad bay muhiim ugu tahay haddii ay noogu dhacdo si maxaan yahay nabadgelyo oo xor oo xalaal ah ee u tusteen musharaxiina Muuse Biixi inaad taageersan tihiin codkana diyaar u tihiin soo sidaa ma aha intaasi kadib waxa isagoo hadalka soo afmeeray isla markaana kala hadlay halkaasi bulshada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi waxaanu halkaasi uga soo jeediyay khudbad taabanaysa dhinacyo badan waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha reer Saaxil degmada Berbera ee cadceedda noo tubanay ilaa xalay soo jeeday iyo kuwa suuqa wareegaya baabuurta wateena taageeraya anigoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye guud ahaan iyo murashaxiinta iyo wafdiga iyagaba aad baa u mahadsantihiin jasaakumullahu khayr waa idinka mahadnaqaynaa cadceeddaa taagantihiin taageerada waannu idinka mahadnaqaynaa mar labaadka maanta hadal badan odhan maayo waa noo guddoon cududda iyo taageeradaasi Berbere iyo Saaxil rag loo dardaarayo ma nihin oo waxay tabanayso loo sheegayo ama garan waayay waxay ku wanaagsanaanayso waxaan ku soo koobayaa waxaynu u wada soconnaa oo aynu xisbi u nahay dalkeennaynu dhisanno diinteennaynu ilaashanno iyo dadkeennaynu hore u marinno waa inoo cadaalad waa inoo xaqsoornimo waa Soomaaliland oo hore u marta iyo maalinta foodka codka noogu ridaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Berbera.